hay-adda sirdoonka ruushka waxaa la magacaabaa VSP mana ahan magac inta badan dadku ay garanayaan balse waa hay-ad meelo badan oo adduunka ka mid ah ka howlgashay gacanteeduna ay gaadhay weliba marar badan si arxandara ah asal ahaan waxay ka soo jeedaa laantii sirdoonka booliska midoogii Sofiyeeti loo aqooni jiray KGB waxaan jira sheegashooyin ah dilal dowladdu go'aamisay iyo xiriir dhow ay la leedahay madaxweyne Putin maxay qabataa VSP kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waynu ku falanqayn doonno waxyaabaha ay qabato VSP waxaa la aasaasay sanadii 1945 ujeedkuna ah kordhigista khataro badan oo loo arkayay inay soo food saareen Ruushka wasaaradda xilligaasi madax waxaa ka ah Vladimir Putin oo hadda ah madaxweynaha Ruushka iyadoo kaashanaysa booliska dalal kale oo adduunka ka mid ah VSP waxay la dagaalantay kooxaha argagixisada iyo kooxaha dambiilayaal ah lacag badan ayaana lagu bixiyay la dagaalanka kooxaha gooniisutaaga ee Chechnya sanadda 1990 iyo 2000 waxa kale oo ay ahayd in ka howlgashay dalalka Georgia iyo Ukraine oo ay ka dhaceen kacdoon ka dhan ah Ruushka sanadii 2015 VSP waxay ku lug lahayd howlo sirdoon oo ay ka fulisay dalka Estonia oo xubin ka ah gaashabuurta NATO markii la qabtay nin sirdoonka Ruushka Estonia waxay Ruushka ku eedeysay inay afduubtay sarkaal lagu magacaabo Easton Kover si ay ugu bedelato ninkii laga xiray bartilmaameedka cadowga sanadii 2002 dilkii khaarajinta ee loo geystay taliyihii kooxaha jihaadka Chechnya ayaa waxa loo eedeeyay VSP waxaa la sheegay in loo keenay warqad lagu soo laaray nooca sunta ka mid ah qofku marka uu sanka ka qaato uu dirbaba dhimanayo balse dilkii loo geystay ninkii Ruushka u dhashay Alexander Litvinenko ayaa ahaa waxa shaaca ka rogay falalka hay'adda VSP waxa uu ahaa nin ku nool London isla markaana ka soo horjeeda madaxweyne Putin balse waxa lagu dilay sunta loogu magacaabo polonium 12 sanadii 2006 baartan ay dalka UK ku samaysay dilkiisa ayaa wax la ogaaday inay u badan tahay inuu amar ka bixiyay Putin iyo madaxa sirdoonka Ruushka ayaa diiday eedayntaasi iyadoo qofka lagu shakiyay inuu dilka gacan weyn ka geystay Andrei Lugovi ka dhigtay xildhibaan leh xasaarad aan lagu xiri karin marka uu adduunka safar ku marayo Litvinenko ayaa VSP ku eedeeyay inay howlgelisay kooxo khaarajina ka shaqeysa oo lagu magacaabo URBO waxaa sidoo kale sanadii 2013 dhintay nin lagu magacaabo Boris kaasoo dalkiisa loo eegeysiyay inuu ahaa shil lacay maalmo ka hor dilkii Litvinenko baarlamaanka Ruushka ayaa waxaa loo meel mariyay sharci VSP oo ogolaanaya inay cadowga kaga ugaarsato dalalka dibadda dadka kale ee Putin aad ugu soo horjeeday way weeriyaashu ka mid yihiin ayaa ku dhintay sifooyin shaki meedhan ah VSP inta badan ka dambeysay dilalkaasi sirdoonka dibadda shaqooyinka ay qabtaan hay'adda waxa kale oo ka mid ah ururinta siraha iyo kooxaha dalalka kale waxayna adduunyada u dirtaa basaasiin tiro badan waxyaabaha kale ay qabato waxaa ka mid ah in la bedelo fikirka laga qabo Ruushka iyadoo isticmaalaysa baraha bulshada sidoo kale inta la jabsado internetka tusaale ahaan hay'adda sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin in Ruushku ay u dhaceen habka kumbuyuutarka doorashadii Mareykanka faragelina ku sameeyeen natiijada waxyaabaha arrimahaasi muujinaya in markii madaxweyne noqday Putin 2000 in saraakiil aad u badan oo sirdoonka kala tirsanaa ay galeen qaybaha kala duwan ee dawladda